السلام عليكم waad mahadsantiin hadda maanta waxa weeye maalintiis qiimeynta way cadaani baa la qiimeynaya cadaani qiimeyntaas maxaa lagu dhigi jiray qiimeynta oh my god gabgabad ka wada gabgabo waa lagu gabgabeynaya ilaa awas baa meeshan joogta cadaaniyo oo aad marna tagaysay jigjiga marna dirdhab tagaysay marna aad tagaysay mataqaanaa goday marna dhuxun aad joogtay oo aad 9 bilood dad u xisaabinaysay bal adiga saan ku qiimeynaa horta gabgaba too far 8 bilood ilaa August was 1 year moogtaad والله 1 year 1 year sidoo kale maaha moogtaad waxaan joognaa maanta July baan joognaa bartamiga kala barkii July maanta waa marka bil baa ka dhiman muxuu ahaay sanadkii haye waa xilli dheer marka 3 bilood iyo hadda tirada 6 bilood waa la gartay sanad sanad xilki waydi waxaan markii Somali regional maalin uu leeyahay waa is qiimeynaya ayaa socota kolka dhowr cadaani baa jirta cadaaniga jooxada ah gobolada marayay waftiga ah dhuxun tagay geel loogu qalay fiiq goday tagay dhagax buur faraska la saaray taas waan cadaani haye cadaani kale diblomaasiga dhisay joogay muxuu ahay bisdiilka Axmed Yaasiin ay isla dhigayeen qorshayaasha kolla asmar u sii duulayay kolla ka soo noqonayay kolla wasaaradda arrimaha dibadda madax gashanayeen kolla muxuu ahay prime ministerka كان عداني كلوها عداني كلوها ديردبا هي حفلته هذه جيجيجا هي حفلته أديس أبابا كانت كهذا المركة من بعد اللي هو يسأل أرتا أي عداني التليفون كقاص أبري ولا تكذب صعب بس 1 مليون هيك شوكتا سومال ريجن أي ورك كربا واحد 6000 كوب بدو حوي إيه ورا هذا حولها اللي ما في عينهم عافمات كورن حولها اللي ما في عينهم حاجة وحين عمريا شن سؤالات ده يوصل الوقت هي عافمات كورن إنه في عندي حولها اللي ما في عينهم حاجة وحين عمريا حولوا في عينهم دبادي جودبة قبل الله سيف عنا وصعدا دولتي مسكوف في عنا تي كلام مسكوف في عنا حفيشتي والله فورمت كي كلام وصوص عدا ريبوت كان بنسيا بريجي هرنا حي نمط بعد عيسى وين الواد بس وين ولا ساعدت تقاس قيمة بعد عيا دولتي هرني على بابنا دولة عسوسية كل ما ينسى أول فت مال بوري جنيا وحاسب ولا سمايا هذا سؤال كويدي أنا بتحاسب تبرو ول ما بقى ما هذا بقى مركي أروح عيد أوكي أنا لا حكم قرمي كمان من لا تشوف إنسان قارب قارني متقنا نميه حتى أنت بدناك نصور التام كل عرسني مثلا هوتيل كتشوف إذا صور دوما أنت نوي مادان جيسا ساو كفيرني marka ruuxi loo yimaado inuu cabsanay in dambi loo qabsanay waxa kale oo qaarna aaminsan ka baqayeen in xukunka loo dhiibo waxa hadda jirta dadka Soomaalida wareer baa haysta laakiin xalkii baan ay muuqdo marka qiimeyntaada isku raacsiiso waxa halka adigoo ka hadlaya haddana waxyaabihii ku dhiirigeliyay ku tusay halka markaad dad wada gaajaysan u tagaysay oo wax hal waxa hayaan ku siinay waxyaabaha soo arkay Soomaa qiimo gabagabay Soomaa horta dadku aad ay u niyad fiican yihiin rajo badanna way qabaan cabsi inuu dagaal marka la dhaco oo laf dagaalantana way qabaan haye rajo in oo laf madax noqonaysa way qabaan haye in la fiicnaanayo waa qamada igu yaab badan waxa way dadku xoolo badan ma bidhaantooda waa wada caato haddana waxa la waxay cunto hayo ku keen gabdhuhu way dhuuban yihiin haweenka ilmo yar baad mooday imsa 12 carruur aan leeyahay ku dhiman way dhuuban tahay sanad walba way dhashaa ruuxana gaasha waxa isleedahay ma socon karo sanad walba dhashaa taana yaa bay wahay baahidaan arkay iyo dawlad la'aanta ay dareemeen xalkeed waan arkay horta waxaan dadka Soomaalida u sheegi in la dhisi karo dawlad wadani ah oo shilin cunin oo jid dhista oo iskuul dhista oo system dhista oo caafimaad dhista oo nabadgelyo dhista oo cadaalad dhista in la sameyn karo taas waxa way bawr waa meesha qiimeynta aan kuugu talagalay inaad maanta sida rasmiga ah u taabatid dad aan maskaxdooda iyo qalbigooda iyo matqan hamigooda aan xor ahayn oo mid walba markuu waxa u malaynaysaa dadkii kan shaqada hayaan wuxuu doonayaa kan dawladda ku jira inuu wax u soo dhaco uu dirsanaya uu dhahay xafiiskan waxa iska leh hebel baa iska leh reer kaas wada leh
ka dowladda ku jira wuxuu leeyahay inta wax kaa dhammaanin bal hadda waxaaga aruurso oo wax ka oo u malaynaya inuu adduunka gam noqonayo halka adduun ku dhamaaday ha shabhadina waxaan u jeedaa oo leh hami weyn oo dhahaysa okay meeshan waxa dhaqaalihii baan ku dhinaa dadkii baan dhisaynaa fikirkooda u dhisaynaa xor baan ka dhigaynaa qalbigoodaan hagaajinaynaa markaasaan haddana waxaan rabnaa millioniska gaaska ka soo baxaya xashiray aan ka hadlaynay bal taa raggan sayd u bedel oo xoreyn waxaan ku xoreynayaa horta shacabka waxaan u sheegayaa dowlad wadani ah oo caafimaad iyo baarlamaan iyo booliis iyo maxkamad iyo jid iyo muxuu ahay waxbarasho iyo jaamacad iyo system iyo madaxtooyo iyo wasaarad intay samayso ay si fiican u shaqeyn karaan in la dhisi karo lacagtii hadda haysana waa lacag badan haddii dadka loogu shaqeeyo waa laga xadaya waa laga waqtigaa ka dhacaya way maamul aqoon laayihiin qandaraaslaha wixii dad ownershipka yaa ka maqan marka horta waa intaan hadda haysano waa la hagaajin karaa ko waxaa kaloo u sheegi wax walba waan ka iibin horta gaajada waan ka iibin qabyaaladana waan ka iibin nin bay soo dirsan wasiirka annagaan yuu noogu jiraa meesha inuu dowladda usoo dhaco sii shaxaadaan bay dooni nin walba haddaan 10 milyan oo dollar siiyo 10 milyan oo qabyaalada ka iibiyo soo yeelis bay anaa iska gadaya qabiilkayga anaa tonkii uga bixi corruptionka waan ka iibin hooyo corruption damba ha samaynin hooyo qabyaalad damba ha samaynin hooyo cidna ha ku tiirsanaanina madax bannaan oo dhaqaalo iyo guri iyo waxaad ku noolaato iyo waxbarasho iyo caafimaad carruurtaada iyo adigood heli reer hebel wax insurance ood uga baahan tahay ma jiraan leh cid walba saad ku samaynaystaas noo sheeg 5 years kadib qof kasta oo Soomaali ah oo Somali state ku nool Soomaalida ogaadeenaya 5 years kadib waan u ballan qaadayaa inaan ka iibiyo gaajada iyo cudurka iyo qabyaalada iyo corruptionka waan ka iibin bal saad uga iibinaysaa noo sheeg laakiin 5 sano ka hor ninkii nasiixada inta aanu ka gaarin jirta ka baxay ninkii nasiixada hadda waan qadinayna inta haddii ninkii adkaysan waaye carruurta caanaha ka seexada carruurta habka ka dhama aqalada cansheerada ka qaata corruption sii sameeyo markaan dadka shisheeyaha soo dhaweysa shilinka Soomaalida hoosta ka siiya jaadka iyo habeenka dadka Soomaalida waxooda la xada dad kale inta yara dadka Soomaalida loogu dhiibay ka kala xadee 100 qoys sii kaajaysiin 5 sano adkaysan kari waaye 5 sano adkaysan waaye kolka 10 milyan dollar la soo qaybinaya isaga 0 milyan dollar baan siinayna bal 10 milyan aan dadka wax xaqiijina meesha ka imaanaysa horta waa mid waa gaaska mid waa beerihi mid waxa weeye diamond iyo dahabki dahab lagu baxay gobolka Liibaan iyo daawo iyo dahab ka baxay mid waxa weeye dhaqaalihii iyo mataqaana xisaabtii meel kasto ay tagayso la xisaabsho oo la isku ogaado waxba la dhicin sax soo waxa leeyahay marka qofka 10 milyan sidii mataqaana Dubai baan u noolaanayna dadka Carabta oo anaga loo soo waxaad waxa kafaalada adigu waxaad isku qori shan shaqaale oo maartay canshuurta ka soo xarato qaar sida Carabta marka kafaalada waxaad keeni ma Hindiya bad keeni soo Bangladesh ayaa taalaad kan taado ariga Soomaaliya waxaas leeyahay kuwa amxara kuwa wasdaxna ma u kaadis kuwii mataqaana anaga intaan gumaysan waxaan wala dhabukan u keenay dhabuka iska dayna marka waaye saasheedi kaleeto 10 milyan qiimaysaad ku keenaysa qiimaha lacagta itus tabaan qiimeena wixii kaleete gaaska kaliya haduu yaabo soo ku noqonaysa after 5 years gaaska income-ka Soomaalida oo imanaya 8 billion dollar hadiiba ibna la dhaco oo la dhuro oo xabashada la xado oo China dhinac uu ka qariyo gaaska baxaya oo xataa qaraafka iyo qoratada iyo baashi iyo maxay baramadii kulli ina dhacaan ma inta soo hadha wax dhamaynaya ma jiro laakiin haddaan taas maxay ku dhalan marka inaad isku duubnaano Soomaaliya marka yes waxaan ka rabaa isku duubna kaliya iyo midnimo Soomaaliya ay leeyimaadaan anna nin walba inaan 10 milyan dollar u qoro oo iraado the coming 60 years hatta caruurtiisa 60 sano soo socota budgetka waan soo diyaarin dhakhtarku wuxuu ku tagi lahaa iskuulka wuxuu ku baran lahaa gaariga guri investment lacagta amaahda lagu siin lahaa budgetka waxaa leeyahay budgetka wadanka ugu budget fog waa wadanka la Norway 60 sano u dejisay 60 sano gaaskooda waa gaaska same way baa rabaa inaan sameeyo same way 60 sano qofka soo tiri 15 milyan Soomaali ku dhufo budgetkooda intaas uu noqon qof ilmaha inta dhalan karo
projection baa lagu dhuftaa waan ku dhufan intaasuu noqon lacagtan waa loogu dari royalty-gun baa laga dhergiba royalty laga dhigaya maxaa jira waa shan sano kadib wey sanad walbana waxaa ku darsamaya 5% iyo ku koraysa marka shantaa waxaan u talgalay Soomaalida iyo kuwa xamar baan qaryaalada ka iibinayna Hargeysaan kaga reebayna yar carada iyo ooyinta kaga gadayna qolo kale oo gaarsi joogta iyana af Soomaaliga kasi dhiman af Soomaaliga kaga gadayna Djibouti la qaadkan kaga iska daayay idinkuna qaad lacagti baatan deeqsinimada tusaysa Soomaalida waan tusaynaa waxaan dhahaynaa hooyo iska daa qaadka hooyo iska daa qabyaalada hooyo af Soomaaliga dib u baro hooyo carada iska daa hooyo qudad iska daa hooyo qarax iska daa القرحة والقضية. والقرحة جلس أخوه شغل. مرة تحسي أنت هسه كوتشو تشينينا قيمتي عدان والأرتين أنت سنت كوتشو أنت وحول سماية وردن يسوع وحول سماني أنت هسه إنك بدل أنت تلفون انترفيو بحشنا إسكاب الدابة. سو مرة وحنو قد بدورنا قيمنا قلتوا بدن أو كو جدا أو كبير تي في هرتا كسر إسر تي في وريك دم ما قارنا مسافر قارنا إسر تي في وريك دم بي إسر تي في. السلام عليكم. من نمو